waxaa lagu qabtay xaflad aad u weyn iskool ku yaala koonfurta magaalada London. xafladan oo loogu dhigay caruurta iskoolka dhigata ayaa ah xaflad lagu guddoonsiinayay shahaadooyin kala duwan. caruurta dhigata iskoolkaasi ayaa ah kuwa ay aqoonsadeen dowladda Ingiriiska wasaaradda waxbarashada inay caruurtaasi waxbarashadoodu ay aad u sareyso. haddaba iskoolkan ayaa ah iskoolkii ugu horeeyay ay maamulaan ajnabi oo ku guuleysta markii ugu horeysay awardkan London Education Partnership Award. haddaba iskoolkan ayaa wuxuu ku guuleystay abaalmarinta sanadkan ee iskoolada ama awardka ay bixiyaan wasaaradda waxbarashada oo loogu magac daray London Education Partnership Award. maamulaha iskoolka Ciise iyo ardaydiisa ayaa waxaa lagu casuumay xafladda abaalmarinta ah ee sanad walba ka dhacda magaalada London, kuwaasoo lagu tilmaamay inay yihiin iskool dhinac walba ka caawiya caruurta, ha noqoto dhinaca waxbarashada ama isboortiga ama isfahansiinta waalidiinta iyo caruurtaba. haddaba waraysi aan la yeelanay maamulaha iyo macallimiinta iskoolka iyo ardayda iyo waalidiinta ayaa wuxuu u dhacay sida tan. waxaan haatan la joognaa macalinka iskoolkan mise maamulaha iskoolka Pride Education Center. sida la socotid waxa iskoolka wuxuu ku guuleystay award ama abaalmarin. muxuu ahaa balado wax yar inooga taabanay dhinacaas? horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeyso aad baa u mahadsantihiin Universal TV oo nasoo booqatay maanta. iskuulkan Pride Education Center waxaa wado waa iskuul dhalinyaro aasaastay 2006. saa u tihiin iskuul maahan community, waa iskuul asaga self funded oo isfan gareeyo. marka alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay shaqadan qabanay ardooyin badan oo heer wanaagsan ka gaaray inay iskuulada dhan ka dareemeen oo facility environment ka haysano. sidaas daraadeed waxaan badinay London Partnership Award oo ku guuleysanay. waxaa message joogay wasiirka waxbarashada iyo waxaan noqonay organizationkii ugu horeeyay oo ajnabi ah oo qaaday awardkaas. marka aad ayaan ugu faraxsanahay maanta. waxaa weeye maadaama yahay sanadkeena ugu dambeeyay oo aan ku celebrate gareynay ardooyinka hadiidaha qaaday waxyaalahaas ayaan u amaawulin gareynaysaa encouragement fiican ugu siino inay ku doodeedaan ardooyinka kale insha Allah. maxamed maanta abaalmarin baa lagu siiyay. maxaa lagu siiyay abaalmarinkaas? waa arday fiican ahay, haddana dadkan waan caawiyaa iyo si fiican waxay ugu shaqeysta. macalinkeena waa maqlaa. iskoolka waxaad ka barataa Soomaa? marka maxaad ka bartaa iskoolka? waxaan ka bartaa math, science and English, xisaab iyo science and marka maxaad ku guuleysatay hadda? xisaabta. Alaykum salaam. iskoolkan baad dhigataa? haa. meeqa sano dhiganaysaa? hal sano dhiganahay. hal sano? maxaad barataa? waxaad bartaa math, English, science. maxaad jeceshahay inaad noqoto markaad weynaato? waxaad noqdaa nurse sarwa. magaca? liibaan. liibaan iskoolka meeqa sano dhiganaysay? 3 sano. 3 sano iskoolka dhiganaysay. maxaa barataa? English, math and science. maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka? heart surgeon. dhakhtar baad rabtaa inaad noqoto? dhakhtarka qalitaanka? haa. raxiim. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Xabiib Faarax. waxaan ka mid ahay ardayda dhigata dugsiga Pride Education Center. waalidiintooda aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta xafladda halkan ka dhacday oo aad iyo aad xaflad aad u qiimo badan ah. midda kaleeto waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa macallimiinta iyo guddiga qabanqaabada xafladdan. وعليكم السلام. حالينا نصر عبد الله معو. نصر meeqa caruur baa iskool ku dhigata? caruurteeda laba ayaa dhameysay. mid wuxuu dhameeyay sanadkii hore, midna sanadkan uu year 11 ka baxay. marka sidee ku caawiyeen iskoolka? ma sha Allah iskoolkan aad iyo aad ay noo caawiyaan. waxaa joogta dhalinyaro Soomaaliyeed oo la shaqeeyay iskoolka. ilmaha Soomaaliyeed aad iyo aad u saacidaan. maxaa la aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. waan ku faraxsanahay, waan u hambalyeynaa insha Allah. waa mahadsantahay. okay adaan. السلام عليكم. وعليكم السلام. مقعي شكر محمد. شكر meeqa caruur baa iskool ku dhigata? waxa ay dhigata 5 caruura. iskoolkana sidoo ku caawiyay? wallahi caruurta lagu furay waa iskoolka. wayna imaadaan Friday and Saturday day imaadaan. ma sha Allah aad iyo aad uu noo caawiyay. ciise khayr Allah siiyo. caruurta aad uu noogu caawiyay. wixii iskoolka dib ka qabaan wuu tagaa, wuu soo wareystaa. intana wixii uu ka caawin karo karaankiisa uu ka caawiyaa. hal wiila. hal wiil meeqa sano dhiganay? wuxuu dhiganayaa ilaa waagii la furay. hadda almost waxay ku dhowdahay 3 sano. 3 sano. marka ka waran waxbarashadiisa?
والله الحمد لله aad baa ugu faraxsanahay waliba waxa way waagan imaanayni hadda macnaha big difference hadda u dhaxaysa ilmaha because waxay suubiyeen horumar fiican macnaha ilaa waxay hadda suubiyeen early GCSE inay suubiyaan imtixaamadii ayagoo yeernayna yeerteen marka wallahi ilaahay ma haddaas u sugnaatay ka sokoowna dhalinyarada macnaha meesha soo abaabulay oo waqtigooda u huray oo mataqaana nala dadaalaya insha Allah waxaan rajaynaynaa meelahan oo kale inay badato بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Faadimo Maxamuud Cabdulle halka kan waxa ay dhigtay iskuulka kan 3 caruur ah ma sha Allah aad iyo aad bay ugu fiican yihiin aad iyo aad baan waxa ugu mahad celinayaa dadka meesha qaban qaabiyay ama xafladda tan loo qaban qaabiyay aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu mahad celinayaa maamulaha iskuulka kan labadeeda caruur ayaa waxay galeen gareedka koowaad ay qaateen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inay ilmahayga ay soo qaadaan gareedka ugu fiicnaa waana mahadsantihiin